السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قاعد بقنا حشان ما أنت وحين وذا تاريخ دي جال محمد سياد بري. أوكي كسر دوالة فيديو نعسو. maxamed siyaad bare wuxuu ahaa madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliya. Jaale Maxamed Siyaad Bare wuxuu ku dhashay magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo bishii Oktoobar 1919. Wuxuu ku dhintay magaalada Lagos ee dalka Nigeria bishii Janaayo sanadkii 1995 asagoo ah 75 jir. waqti ay xamaasad siyaasadeed ka taagneyd wadanka Soomaaliya ayaa 1969 koox ciidanka xooga ah oo uu hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Bare ayaa afgambi lama filaan ah ku qabsaday awoodda wadanka ayagoo hal habeen ku qabsaday magaalo madaxda Muqdisho, halkaas oo ay kaga dhawaaqeen dawladii kacaanka ummadda Soomaaliyeed. Jaale Maxamed Siyaad Bare wuxuu wadanka u hor kacay horumar degdeg ah oo muuqda ayadoo si iskaa wax u qabso ah loo dhisay wadooyinka, dugsiyada, xarumaha bulshada, cusbitaalada iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaa dawladdu la wareegtay maamulka iyo faraku-haynta bangiyada, beeraha waaweyn, shirkadaha muhiimka ah, warshadaha iyo dhammaan wixii muhiim ah sida ganacsiga iyo baayac mushtarka. Dawladdu waxay si qeexan u mamnuucday qabyaaladda, qoloqolaysiga iyo iskala sooca bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ah, taasi oo si sharci ah loo aasay qabyaaladda, isla markaana lagu dhawaaqay in shacabka wadanku siman yihiin meel kasta oo ay ka joogaan ama qolo kasta oo ay ka tirsan yihiin. Waxyaabaha ugu waaweyn ee kacaanka ummadda Soomaaliyeed ku soo kordhiyeen waxay ahayd hirgelinta qoritaanka farta Soomaaliga, taasi oo noqotay mid dhaxalgal u ah bulshaweynta ku hadasha luqadda afka Soomaaliga. Si loo fidiyo oo loo kobciyo qoritaanka luqadda Soomaaliga ayaa dawladdu waxay samaysay ololihii afka Soomaaliga ee bilaabmay sanadkii 1974, waqtigaasi oo dugsiyada la xidhay si 25,000 oo arday iyo 3,000 askarta ciidanka xooga ah u tagaan miyi iyo magaalaba si ay u soo baraan qoritaanka farta Soomaaliga. dhowrkii sano ee xigay waxay dawladdu ku gaadhay heer sare ololahaasi baritaanka farta Soomaaliga ayadoo sii kordhisay dadaalo iyo tababaradii. sanadihii badnaa ee Jaale Maxamed Siyaad Bare haystay talada wadanka Soomaaliya wuxuu gaarsiiyey ummadda iyo wadanka Soomaaliya heerkii ugu sarreeyay ee Soomaali weligeed gaadho. waxaa horumar muuqda lagu sameeyay wax soo saarka wadanka ayadoo la dhisay warshado fara badan xagga ciidanka xooga iyo kuwa qalabka sida ay loo dhisay, waxayna gaadhay Soomaaliya mid ka mid ah 5 wadan ee ugu awooda badan qaaradda Afrika. dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka ayaa si xawli ah u kordhay. dadka Soomaalida ah oo boqolkiiba 90 reer baadiye ahaa ayaa noqday boqolkiiba 40 reer magaal aqoon leh. si kastaba ha ahaatee 22 sano ee xukunka military kadib ayaa xoogii kacaanka ummadda Soomaaliya lagu khasbay inay ka baxaan magaalo madaxda wadanka, midaasi oo ay ka dambeeyeen ururo mucaarid iyo dagaalyahano qabiilo u dagaalamayay. bishii Janaayo 26, 1991 ayaa Jaale Maxamed Siyaad Bare ka degay maamulka iyo talada dawladda kacaanka ee talinaysay wadanka, asaga oo wadanka ka baxay. madaxweyne Siyaad Bare asagoo 75 jir ah wuxuu ku geeriyooday magaalada Lagos ee wadanka Nigeria bishii Oktoobar 26 sanadkii 1995. marxuumku waxaa lagu aasay gobolka uu ku dhashay ee Gedo. Okay, maanta fiidiyogeena halkan ayuu ku dhameystireen. fadlan dad fiidiyoga ka heshay like, share, comment inta bajino lahaadii si saad ula socotay fiidiyoga cusbaan maalin kasta soo galay. fadlan subscribe iyo saar si aniga igu noqoto dhiirigelin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.